السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan la kulanay zaciimka weyn aabaha xorriyadda ninka odayga ah oo aad wada taqaaniin xabiib malaayiin qaaqaan marka hore soo dhawow ku soo dhawow Brussels maxaa Brussels u timid والله بروكسل horta waxaanu cazumnahay safaaradda cazumnahay safaaradda waxaanu imid inaan dawladda arko madasha arko kaasatan waxaanu imid inaan madaxweynaha uga mahad celiyo jiilka saddexaad ee Liibiya laga soo qaaday iyo horumarka iyo nabad iyo nolol iyo waxyaalo badan oo laga wareysto bankaan aad u mahadsantahay sharaf ay tahay inaan kula kulmo waxaan qof mar walba u ololeeyo xaquuqda gobolka Banaadir iyo dadka gobolka Banaadir degan marka hore dadka gobolka Banaadir degan maxaa rabtaa inaad fariin u farto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u sheegayaa gobolka Banaadir waa in loo helaa Banaadir state normal maaha federaalka sax Banaadir waa in state noqotaa anigu sidaan aqoon u leeyahay u ogahay dadka deegaanka leh haddii taariikhiyan adduunka la fiiriyo deegaanku qolo walba way yeelan karaan oo Banaadir waa metropolitan laakiin waxaa deegaanka leh ninka caanaha iyo cooska iyo hilibka keena okay dawladda federaalka Soomaaliya maxaad kula dardaarmaysaa maadaama hadalkaaga meel dheer Banaadir in la soo koobo oo mudulood laga soo yareeyo noqoto Abgaal iyo Mursade iyo reer Xamar ma ku faraxsan tahay maamul inay yeeshaan dadka gobolka Banaadir degan sidoo doonaan noqdeen faraxsan tahay maahane waa lagu qasban yahay ilaa aan la helin maamul gobolka Banaadir lama heli karo maamul markii la helo meel loo raaca la helayo xaafadaha iyo degmadaha dadka dhibaatay tabanayaan qaraxya dhaco maxaa kula dardaarmaysaa meel bay ka dhacaan Yurub bay ka dhacaan anaga Yurub ka qeylin maanta qaraxyadan waxa weeyaan way iska dhamaanaysaa adduunka meel walba qarax iyo wax walba ka dhacay insha Allah waxay noqonaysaa wax laga bixi doono laakiin Banaadir state waa loo baahan yahay astaanta caanka ku ahayd maxay tahay hasta Victoria sempre ka qayaasha aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ah waadna mahadsan tahay waxaan ku rajaynaynaa caafimaad waara mar labaad ku soo dhawow magaalada caasimadda